fulinta xukunkii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku riday Axmed Cabdi Aadan Dhega Dheere oo ku xukunaa dilka Allah u naxariistay taliye ku-xigeenkii ciidamada NISA ee Galmudug gaashaanle Faarax Cumar Geelle iyo walaashiis Xaawo Cumar Geelle ayaa maanta ka dhacay degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud fagaaro ku yaala banaanka degmada Cabudwaaq ee ka dhacday toogashadan waxaana goobjoog ahaa dad marxuumiinta maamulka degmada Cabudwaaq xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo kiiskan si gooni ah isha ugu hayay Axmed Cabdi Aadan Dhega Dheere oo dilkan toogashada lagu fuliyay ayaa 24 bishan maxkamadda ciidamada qalabka sida ku riday xukun dil toogasho kadib markii lagu helay in bartamaha degmada Cabudwaaq uu ku dilay taliye ku-xigeenkii ciidamada nabad sugidda Galmudug iyo gabar walaashiisa Allah u naxariistay Axmed Cabdi Aadan Dhega Dheere oo markuu dilka geystay ka baxsaday degmada ayaa ciidamada ammaanka ee ku sugan degmada Cabudwaaq hawlgal maalmo qaatay oo ay ku baadigoobayaan Axmed oo ka baxsaday goobta dilka ku geystay ayaa ugu dambeyn ku soo qabteen deegaan ku yaala duleedka degmada Cabudwaaq ugu dambeynna maanta la toogtay dhinaca kale ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka iyo maleeshiyad hubeysan oo ka careysan qisaastan ka dhacday degmada Cabudwaaq ayaa israasaasayn kooban ku dhex martay qaybo ka mid ah bartamaha degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac israasaasayntan ayaa ka dambeysay kadib markii maleeshiyad hubeysan ay weerareen askar waday meydka marxuumka saaka loo qisaasay dilka taliye ku-xigeenkii ciidamada nabad sugidda Galmudug iyo gabadha walaashiisa dhimashada laba ruux oo dhinacyada israasaasayeeya iyo dhaawaca saddex kale ayaa la xaqiijiyay waxaana waxgaradka iyo mas'uuliyiinta deegaanka oo ku matala Galmudug ay ku guuleysteen in xalay ka gaaraan xiisadan ka dhalatay qisaasta marxuumka xaalka degmada Cabudwaaq ayaa haatan degan waxaana laamaha ammaanku ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida degmadan Siciid Goode wararka TV-ga Universal degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud